السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا هولالكن عبد المجيد maanta mawduucana waxaan kaga hadli doonaa dadka ku jiray saaxadda YouTube-ka ama barta YouTube-ka kuwaas aan maanta noolayn amaba dhintay inta aynaan mawduuca u gudagelin waxaanu kaa codsanaynaa inaad kanaalka subscribe-ta saarto si ay nagu noqoto dhiirigelin ku soo dhawow يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال dadka badankoodu waxay u haystaan in qofka caanka ay ka daawanayaan baraha bulshada in ay dhammaantood faraxsan yihiin wax kastaana ay u dhammaystiran yihiin laakiin arrinku sida waa uu ka duwan yahay keliyata waxaynu ka garanaynaa qofkan caanka inta uu hortaagan yahay kamarada oo keliya Caleb Logan YouTuber-kan waxa ku xidhnaa 5 milyan oo qof tiro dhaafaysa waana kanaal soo deyn jiray muuqaalada loo yaqaano vloggiska kanaalkan oo iska lahaa wiil yar oo aad u da'yar da'diisuna ay ahayd 13 jir wuxuu ahaa wiil aad u da'yar haddana ay ku xidhnaayeen dad tiro badan oo intaa leegi intaa kadib sanadka markuu ahaa 2015 dadkii ku xidhnaa wiilka yar waxa soo gaadhay war laga naxo warkaas oo ahaa in uu wiilkii yaraa dhintay wadna istaag waxayna ehelkiisii la wadaageen dadkii ku xidhnaa kanaalka wiilkan yar janaasadiisii iyagoo live-ka u furay ninka saddexaad ayaa nin lagu magacaabi jiray Friday kanaalkan ama janaalkiisa waxa ku xidhnaa tiro dhaafaysa 150,000 oo qof waxa uu ku saabsanaa uu ka soo deyn jiray waxyaalo badan sida jiliinka iyo inuu ku heeso heesaha loo yaqaan raabka intaas kadib ninkii waxa uu ku dhaqaaqay ficil aad u foolxun kaas oo ahaa inuu isagu isdilo oo uu xabad isku dhufto ka hor inta aanu isdilin saacado ka hor waxa uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray orahyo oo ay ka mid ahaayeen iga raali noqdo hooyo iyo aabo iga raali ahaada cid kasta oo khalad ka galay inta kadib waa isdilay Allahu a'lam wuxuu isu dilayna lama yaqaan sababtiisa ninka saddexaad ama YouTuber-ka saddexaad ayaa waxa uu ahaa nin lagu magacaabi jiray Sega Stentation wuxuu ahaa YouTuber ay ku xidhan yihiin dad gaadhay 25 milyan oo qof waxa uu ka soo deyn jiray kanaalkiisa muuqaalada vloggiska iyo gameska iyo welibana waxa uu ahaa heesa waxa uu ahaa YouTuber aad u da'yar waxa uu ahaa 20 sano intaas kadib waxa uu tashatay ninkii Sega Stentation la oran jiray burcad afar ah kuwaas oo doonayay in ay dilaan waxayna ahaayeen tuuga la socota dhaqdhaqaaqa Sega Stentation ugu dambeyntiina waa ay dileen ninka afraad ee lagu magacaabo Etika wuxuu ahaa nin bilaabay inuu muuqaalada soo geliyo YouTube-ka sanadkii 2012 intaas kadib uu balaadhay kanaalkiisa YouTube-ka uu ku lahaa waxa uu ku xidhnaa dad tiro badan balse nasiib darro waxa uu bilaabay Etika inuu caayo aflagaadeeyna dadka arrinkaas oo sababay in shirkadda YouTube hawada ka saartay kanaalkiisa 2 jeer yacni markii mid hore laga xidhay waxa uu furtay mid kale kiina waa laga xidhay waanu si wada aflagaadadiisa xitaa markii laga xidhay kanaalkiisa arrinkaas oo keenay in askartu soo weerartay gurigiisa laguna shakiyay inuu xuska yahay ama uu waalan yahay ugu dambeyntii sanadkii 2019 ayaa YouTuber-ka Etika uu soo dhigay muuqaal ku raali gelinaya dadkii uu khaladaadka ka galay maalin kadib muuqaalka uu soo dhigay YouTube-ka waxa soo gaadhay booliska in la weydiisan yahay ninkii lagu magacaabi jiray Etika booliska waa uu gudagalay arrinka Etika waxaana laga helay shandadiisii gacanta iyo telefoonkiisii webi agtiis raadin dheer kadib waxay heleen meydka Etika webiga dhexdiis waana uu dhintay